السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعيد سلام دمان عقيار تشرفت له ريد طبيب ريد دال سيلة يهمل في عيا ملا نبض قبا إلهي إذن كيسو إذي رجينا ملكستو أدونك جوكتان إيسو دواذا نوسو دواذا قيري فرحة سو دواذا اسكسو نقد كلو ونكسن وحشر كلا وماما وانا وحنجوغنا طبيب يددال قلالك هوسنا إلا قرواي هاد adeega idin soo galo enjoy caafimaad Allah idinku daro amiin soo dhawaada welcome haye akhbaaraha hoose waxa la leeyahay maamwale maxaa jiro codki maxaa kaaga dhacay la garo waxba kuma dhicin waa ku ogaa waligiin hadduu dhanka youtube-ka video soo galo shib waa ku ogahay hordhaca la yiraahdo hordhac igu qaata soo dhawaada amuurta khayr Allah ka dhiga Allah nooga dhiga dhama hordhac waa ka dhigteena malayna saddex waxba wax lagu fahmaa Allah noo saqire aragti dabcan waxaad indhahaaga saarto waa laga cashir qaataa insha Allah waqti Soomaali tiri indhahaada ku macalina arrinka kale waa dhageysi dhaga leerta u duleela leeyahay dhaga laabta u duleelo way jiraan labadaas dhagaa jira dhagihii laabta u duleelo Allah na sii amiin arrinka kalena waa akhris weeyaan marka soo dhawaada waxna iska akhriyo waa muhiim akhriska dadka islaamkaana dhammaan muhiim uu noo yahay diinteena dhanba Ilaahay markuu soo dejinay in wax la akhriyo aan ku qasbanayn khayr Allah na siiyo wax iska akhriyo waligiin wax iska akhriyo adduunkana dawaad aragteen qalin iyo warqada lagu wada hadlaa annagana si qaas oo akhriska special noogu yahay maasha Allah soo dhawaada dhageysigana way fiican tahay saddexda wax lagu fahmo Allah hanoo garad siiyo wax khayr leh waa aragti waa dhageysi waa akhris marka hadaa video bila cod aragtaan akhri title-ka waxaan ku soo qoray ama subtitle-ka ama kor thumbnail-ka waxaan uga soo dhigay fiiri ka bacdina halka fikir ya cashirka qaado si ka soo cashirka lagu siiyaba Allah ku sahlo Allah ku saqir soo dhawaada welcome xaaji macu horta ayaanta lagama hadlin waad ogtiino annaga ayaa kacsaneen ilaa haddana annaga kacsan hawsheena waa iska baraanbar waxaan rabaa inaan u jawaabo dadka dhahay maamo waano codkaaga waa gaaban yahay weligiisuu gaabnaa hana gaabnaado ilaahay naguma dhajiyo laakiin codka xasilka ah adikana waa idinku dhiirigelinaa qof dumar oo qaylinaysa lama amaanin qof dumar oo qayliyaysa lama amaanin ee ilaahay afkeena waxsana ka keeno aamiin ya rabbi programka waad aragtaan cashirkan waxaa idinka rabaa reer dabiib reer dadaal inaad qaadataan oo qolkiina ila share garee geysataan hadda ka hor uu soo galay iyo hadda ka horaan cuni jirnay iyo xaaji macu waa ka helay iyo hadda wixii aawi may hadaanba kugu soo simo in adeeray la wareeg ardada cusub hadday bilaabaa inay wixii fiicantay dhab dhahaan ee la cararaanee meel job siiyaan laakiin ardadii hore adinka maba idinka asmacayba wax fiican oo lagu farayareystay oo xaaji macu fiican hadda intii naxaaska waaya baan programka intaan ku arkay buu iga lumay kaa yeeli mayna adeeray program badanna waa soo socdaa Allah idiin barakee wax badanna meesha way yaalaan Allah idiin sahlo Allah idiin saqiro hayaha la qaato adeegan saa ka arkaysiinbo haddaa reed raacdaan xoogaa waxaa laga yaabaa inaa nuxnuxleysaan qosol dhalinyaro maxaa ku taqaanaa because of wuxuu u fiican yahay waaye adeegan wuxuu u fiican yahay Allah xifdiye xaaji macow gabdhaha dhaho ma la cuni karaa maya iska dhaaf ya wax kaloo fiican aan ku soo wada adeegan iska dhaaf xaaji macow horta maxaa laga rabaa aan ku horumarno xaaji macow waxaa laga rabaa Allah u sahlo Allah u saqire inta 100 milyan oo cararayaal ya asigoo 15 milyan haysto baxaaji macow waxaa loo soo buriyaa inuuna meesha waxba ku haynin si fiican ma maqasheen
waxaa laga rabaa up to waya ugu badnaan 300 milyan oo cararayaala oo haddana xoog leh oo tabar leh alla hadeystay oon hore ka dhammaanaynin gudahaaga iska celin karo ilaa 5 maalmood ugu badnaana way noolaadaan laakiin daciif haday yihiin asiga waxay kusoo dhaafaan yaa allah adiga by the time ay kuu imaadeen finish kafkeeba lugta ku wada taageen tabar ilaa malahan iska daa inay maalmo noolaadaan marka inta badan waxa qoysaska loo dhaho IVF aada cararayaashu ma carari karaan Soomaaliya marka hadashe maxay tiri Soomaali nin walba wuxuu cuno ciidamiyaa beentood maaha albaabka nafaqada xaajimco markaa gashti le ogaa kartaan waxa laga hadlaa micnahooda albaabka nafaqada xaajimco markaa ka gashid ogaane ilaahay baa waxooga wuxuu hadda xaajigaaga cuno cabo iyo waxa ragga adduunka ee cararayaasha xayiga haysto ee cunaan faraqa marka xisaabi adi maanta dhan maxaa soo qoray xisaabiyoy akhriyoy xisaabtamoy ya masha Allah luuqeeda la soo galaa dhammaan saankidaa waa ka deena insha Allah waxaa idinka diidahay laakiin haddaad aragtaan qalow aqriya qalowda naftirkeeda okay xaajimco waxaa laga rabaa millions okay nin walba ninka kale intuu ka cararayaal badan yahay ayuu dhanka fertility-ga ku ammaanan yahay oo aan la bursanaynin aan runtii bursiga raggana uma roono dumarkana uma roono raggu waaba dagaalamaanba ayagooba fahmi karaynin meeshii laga rabay iyo meeshuu taagan yahay iyo faraqa u dhaxeeyo laba stop inta badan ka filo qaraacan iyo niyad jab iyo marooro dilaac iyo dashaas iyo isku buuq iyo wax kasta oo aan macquul ahayn iyo inuu asiga dhanba iska dhaadhiciyo inay u dhamaatay waa soonan isla tacaal dhankiisa u kicinya iyo inuu baqayliyo oo yiraahdo dhakhtarka waa beentiis warkiisa beentiis waay wuxuu iga dhaadhicinayaa rag warqadahan aqri oo nafaqadan cun oo isbedelkan samee ila garo bariiska iyo baastaha iyo waslada iyo sabaayada iyo qudaarta iyo shaax iyo waxaa simbalka hoo yaqaano buu rabaa inuu ku helo allaha ku siiyo sababta oo ah aamin ya rabbi ragga sideedaba way ka cararayaal badan anaga meeshan hal ukun 3 bilood la daalaan dhaceeno ayaga deentaasoo milyan ay haystaan daciif haba ahaadaane laakiin inuu micnihii fahmi karo waa ninka ragga waayo waxaa laga rabaa nafaqa iska badatay oo kala nooca inuu qaato midda kale farxadda sida annagana loogu amaanaa raggana loogu amaanay ragga sabankaana waad ogtihiin ilaahay baa oga 90% dadka foorkaasaa geedkaas la eg kaftan iyo faracayaar iyo hurdo iyo dabaal iyo orod iyo jimicsi badan iyo ragga waxay samayn jireen waagi horaa la dhahay xataa waxay samayn jireen like derbi kabood camal like laba wiila ul qabanayo markaasuu booda dhanka kale dig ku dhaha ragga waaweynaa samayn jira hadda waxaan umalaynaa teenage-ka basaa sameeyo dadkii dhan way laf cuslaadeen sidii loo fadhiyo lazy loo ahaa tartanka orodkay samayn jireen waxay samayn jireen boxing ama fair dabaal wax badan oo activity ragga samayn jireen laakiin hadda they don't do cayaarahana waaba u gooniba way samayn jireen cunto xayina waa cuni jireen waagi hore laakiin hadda sandwich iyo sabaayad iyo suqaar iyo wax yar iyo canjeero yar iyo wax yar waxaasaa dhig laysku siinaa hadhow ninka dhanba maskiin waa bir laba mar ma qaadi karo so think about it okay cararayaasha ragga oo caafimaad leh Allah siiye waa u muhiim gabadhii rabta uur qaadis ilaahay baa bixiye sida anaga hormoonka oo dhan looga baaro ayagana fiican tahay in looga baaro cararayaashooda maxaa laga rabaa marka soo dabcan nin walba wuxuu cuno ciidamiya nafaqa fiican inuu cuno waa muhiim dabcan markii albaabkan ilaa furo arki kartiin taas waa idin leeqaada
saaxiibtinimo wanaagsan. ka raali ahaada Amazon Australia iyo Amazon India iyo Amazon Turkey, Amazon Saudi Arabia waa arki kari waaye. Amazon igu cusub waaye, maalmahan waa aniga adeega idin soo gelinaya Amazon South Africa, waa arki kari waaye. laakiin inta kale Sweden waa idinkaga helay, Canada iyo USA as usual waaye, iyo UK waa idinkaga soo helay. soo Amazonada kale adinka u bedeshaya, ka raali ahaada. waa jeclaan lahaa inaan idinkaga farxiyo oo nafaqadan kulligiin easy idinkaga dhigo, ku dhufay ku dhaqaaq kabacdina waa ka soo dhawaada. Okay, gabar walba oo ilmo isku diyaarinaysa ama qoys walba oo baby isku diyaarinayo, muhiim waa aabbahay hooyada inay isnafaqeeyaan. waxa qoysaska Soomaaliyeed inta badan loogu dayrinaa la leeyahay waa idinka dhamaatay, idinkamayna dhammaanin waxa lagala jeedaa nafaqa ahaan levelkii laga rabay ma keeninina. nafaqadana de waa waxaan cunno baad ogtihiin. Okay, markay noqoto arrimaha fertility-ga adduunka aadaa loo xisaabtamaa. waxaa lagu xisaabtamaa da'da, waxaa la fishaa da'da kaloo ka dambeyso inay decline noqoto arrimaha fertility-ga, meesha da'da kale ka yartaa ay full tahay ama ay fiican tahay rajada. waxyaabaha la iska ilaaliyaa waxaa ka mid ah xanaaqa iyo distresska waxa loo yaqaano. ragga oo kale waday u maraan arrinka fertility-gooda, waayo ayaga waxaa laga rabaa in ay caafimaad leeyihiin, ayna noqonin abnormal ama wax qaldan ayna noqonin. tirada ama volume-kooda inuu badan yahay oo count-ka laga rabo ay soo buuxiyaan, so they call sperm count. marka count-ka markuu badan yahay ama tiradu markay badan tahay, hadda waa dhakhtarka automatically wuu accept gareynaa, iyadoo tiradiina loo sii raacinayo inaynan unhealthy noqonin. then shape-kooda ama siday u samaysan yihiin baa la iska rabaa. saa hortiina ka arki kartiinbo inay qaqaloocaan ama unhealthy yihiin ma laga rabo. waxaa laga rabaa inay xayiga loogu talagalay, ilaahay ugu talagalay inay yihiin. maxaa qaqaloociyo ilaahay baa naga og. soo qofka caloosha xoogaa bacteria kale, beerka suba kale, dhiigkar kale, dhiig macaan kale, jirka dhan aan qaras bixin ama nadiifin, nafaqo badan aan qaadan, dhidid badan oo korkiisa ka buuxo. haddaa waaniga idii soo gelinaa xajigaaga ma ordaa, xajigaaga ma dabaashaa, xajigaaga nafaqa ma cunaa, waxyaabo badan oo aad tusaale ku siinayo. marka think about it. waxaa laga rabaa marka xaajiga inuu fertility-ga supportkaasi, yes IVF waa isku shubi kartaan, ragga way u fiican taho inta ugu fiican hararayaasha baa loo soo qaqabtaa, selected loogu sameeyaa. laakiin haddii xataa lagu daro ugxaantii oo laysku daro ayagu caawiyaan ay penetrate ku sameeyaan, still ma noolaan karaan. waa ukuntii ma sii wadi karaan inay la sii noolaadaan. ilaahay baa wax nooliye inay the success noqoto oo healthy pregnancy ay ka abuuranto ama uur qaadis caafimaad leh uu ka abuurmo, isku geyntoodii ma dhici kartaa. waayo ogowhe qofkan wuxuu cuni jiray maynan ahayn nafaqooyin sii xag jiro maynan ahayn. taas waa idin leeyahay, adiga iyo xaajigaaga wada hadla, dadaala xaajigii laga rabaa, farxadaa laga rabaa ilaahay idinkiisa, nasasho waa laga rabaa, jimicsi waa laga rabaa, nafaqo fiican waa laga rabaa. raggu mar walba waxay nooga fiican yihiin horta ayagu ma isticmaalaan chemical. so marsashada chemicalka iyo waxaasi xataa guriga markii la dhaqdhaqa annagaa chemicalka agdhow, mo bleach iyo waxyaabo chemical wax ku dhaqno. ayagu noloshooda waa iska simple, haddayna balwada iyo howlaha isku doonanin jaadi sigaari wixii kaloo kasii xag jiro kaala magan, ayagu way naga fiican yihiin. annaguna waa ogtihiin waxyaabaha qaarkood oo gaasarka nagu keeno waa dhiiga badan oo naga baxo ama caadada faraha badan leh oo nafaqa loo helin, iyadoo sanado naga bixisay annagana aan nafaqadeeda helin. gaasiro badana iska jiro, dhiirigelinta dhageysta. soo xaaji macoyaa lasoo barsadaa jiro,
not to worry hadduu xaajigu si tartiiba dood la-aan buuq la-aan nafaqada u qaato weliba ayaga iyo ay soo tabar celiyaan ama hormoonkooda si saxa ama cararayaashooda ay bataan waay amarka ilaahay maasha allah ayaga by the second ay ku korinayaan cararayaal soo xala haddii intaasoo milyan uu sii daayay caawana laga yaaba haddana inuu sii daayo meesha annaga halka ukun ay diyaar ku noqoto ovulationkeeda bisha dhan hal mar oo weliba maalin ama 2 maalmood gudahooda aan diyaar ku noqono taas waa windowgeena ama daaqadeena xilligaan diyaarkana aan u gabnaa meesha habeen kasta uu ka firdhinaa cararayaal anaga bisha dhan hal mar oo weliba saacada yar ay ukunteena ku dhimanayso taas waa idin dhahaa xilliga aan ka hadlayo ugxaameynta si fiican u dhageysta markay dheefta soo gasho ugxaanta caawisana please la daga la qabta mir malihin waa ogtihiin xagga xaajimaco kuma badni laakiin maadaama isdiyaarinaysiin qaarkiin waa ogtihiin aan malaynaa program walba success inuu noqdaan jeclaa ood ka duceysaan dhagtoydii taagnaato so anyway daryeelkan xaajimaco leh caafimaad allah idinkugu daro xaajimacoyaashana fahansiiye aamin yaa rabbi dadaalka waa inuu soo galo weliba asigoonan u arkaynin inuu ku qasban yahay waayo xaajimacoyaal waxaa jiro haddii la yidhaaha kaale daryeelkan cun ama nafaqadan cun dhaho aniga muu dhakhtarkay dhahay waxbaa kaa daciifa because way naga cararayaal badan yihiin ma loo dayriy inta badan waxaa lais leeyahay hal ukun loo beebi ka samaysmaa mugta ama hal cararayaal oo ka samaysmi karaa so maybe haddii isku aadaan diyaar waay so ilaahay baa garanayo ragga qaarkood biyahooda daciifaa la dhahaa daciifkaas waxaa laga wadaa maxay tahay weydiiya dhakhtarka ma carari karaan miyaa abnormal miyaa oo shaybkooda qaldan miyaa dabcan de nafaqa laan markay yihiin adiguba waad ogtahay haddii maanta ka alamaga qof 2 lugood laga xiro la yidhaha carar ma carari kartaa waa may cararayaasha bilaa nafaqada hadda ma carari karaan taas waaya marka wax nafaqale ay ku hor yimaadaan waa qiyaasi kartaa nin walba wuxuu cuno ciidamiyaa saasuu fahmayaa soo dhawaada welcome nafaqooyinka qaar waxaa la yidhaha wadamada laga isticmaalo ragga inta badan weligood maba dhalma dhigaan waaba ogtihiin ninka ragga rixim kuma jiro caadana kama tagto kumana dhacdo soo ragga 2 jooraba waa from xilligay qaangaaraan ilaa intay ka dhimanayaan tarankooda laakiin way naaqusiyaan oo sida dumarkoo kale way joogsadaan waxaa arkaysaan in caafimaad leh iska fiican laakiin gabadha ayna dhali karin because of cararayaashiisa ma lagu xisaabtamin caafimaadkooda cararkooda shaybkooda tiradooda fluidkaas ma lagu xisaabtamin just jamaac lee ma ridan karaa haa wax qoyaana ma leeyaha haa dendaaseed waxaba la isku shaabadiyay inay okay yihiin haddaa allaha ka dhigo haddaa rabtid inaa ogaatid okay inuu yahay in kale baaris buugii qalin ha lagu kala baxo ha la baaro midda kale ninka madow oo haddana ninka islaamka ah oo ninkaas afrikaanka ah waa laga dhaadhicinaa inuu okeeya asoona haynaa laga dhaadhicinaa because waxaa la rabaa inuu habsaamo inuu tarmo lama rabe waxaa la rabaa inuu habsaamo so okeydaa loo saaraa asaguna dhagihiisu maxay jecel yihiin okay dhakhtarka soo ninka Soomaaliyeed u aaminsan yahay ilaahay baa naga og inaba caadimaa dhag la qabta meer male dhakhtarka hadduu 10 sano ka hor shaabad u saaro okay tahay dhahay dhakhtarkii okay tahay yiri dhakhtarkii war dhakhtarka hadduu okay ku yiri qawda maqashay waxna ha u qaban maxay ahayd waa kalmad Soomaaliyeed oo dhaxal gala qofkaan ogeyn ordo umada dhaxkalo soo ogow waxaa la yiri qofkii wareegaa war la yaalay qawda maqashay waxna ha u qabanin dhakhtarka laga keenay waxaana laga wadaa oo loo keenay wax kala maaha dhaqaatiirta sidee wax u ogyihiin uma sheegaan sababta oo ahna adigu waxa tahay nin madow tarankaaga waa laga naxaa adaa ku farxid islaamka ku farxo ilaahay baa raali ka ah qofkaas islaamka ahaata qalaas laakiin dadkan ma rabaan in lagu bato qasaan inta qurbaha joogto waay wadankii hadaa joogto adigii nasiibkaaga waay
cid kaa naxaysa ma aduuna qof xaasidaho iqdi ka buuxo gunta kaa nacbowna kaa agdhoweyn iljini il insi mar walba ilaahay baa laga magan galaa allaha naga xijaabee laakiin cidna maaragtay xasad gooniga kuguma noqonaysa except wixii gooni kuu yaqaano xasad adiga kuu gaara ah allah kaa qabtee taasee laakiin qurbaha xataa qurba nacas hadaa joogtid canugaaga madaxa madow lama rabo laakiin adaa raba soma allah ku sii soo dhawaada welcome khayr badan iyo farxadaan ilaahay noo wada weydiiy dhammaan xaji muxuusaa uga dhaadhici lahayd nafaqada dhinacaada kasoo gal wixii ragga loogu talagalay ama howlahooda u fiican oo dhandha ka sii hal woonina saaraya nafaqadan warningkaas waxay tahay dadku waa isku jiraan anigu markaan dad kala duwan u adeegayo waxaan jeclahay ilaahay afkayga ha ku duwee in aan dhammaantiin idinku qanciyo lectureka kow gabaray ninkaaga laba meel hadaa ku kala nooshay nafaqadan gaariyo gooniyo uu cunayn haddii kale hamadaa badanayso afraa loo baneeyay maamuwaanoy ma arkina inaan gadaal idinkaga dego ma jecli waxyaabaha qaar inaan gacanta idin geliyo except with warning digniin waa inaan raaciyo nafaqadan digniinaa la socoto digniintaas waxay tahay afaariya ayagaa fuul ka dhigay marka wixii wax fuul ka dhigaayo oo reer dabiiba naftirkiina waaya sida babliga uga fogaada camal please haddaa laba meel ku kala nooshihiin no haddii xataa uu noqonayo uga wixii kuu imaanaa kunjeerka sanay kaa weyihiin laakiin adigu cagahaada kusii doonaaba daranba soo howlihii sir haween waay si fiican u dhageyso nafaqadan waxaa la socota digniin ah haddaa xaajigaaga ilaahay baa leh guriga aa ku wada nooshihiin oo uu farsameynaysid wuxuu cuno wuxuu cabo then is fine laakiin alaabtan inuu qaato magaaladiisa u noqdo ama wadankiisii mashxaradka dhacaya waa aroosadee hadda ka horaa gabaro waa hadda waa iscafinay alxamdulilah waanay cafisee waa ii dhaadhaamise nafaqooyinaan farta ka saare warning uma saarin ilmanimo waa cadow laga koro markaan shaqadeediin bilaabay intaa hoosana ka hor xaajigii dhab ku siisa xaajigii cararay awalna waxaan u malaynaa xaaji ula booco ku toognaayo iska ahaa hafiya balo weeri magaalkiisoo galano ina adeertii waxaan ku taqaanaya aniga igu soo kala fariisay ilaa ay hadda saa idinkaga boqboqo ilaaha laga baqaa afaaraha xaaji maco 40 kilomitiraan ka fogaado war gabadhu waa ii dhaadhaamisay iyadana waxaan u malaynaa magaaladiiba ku cusbeeday anigiiba iga jartay xaaji maco cararaya anigu celi karaa adaa ka mas-uulahay tir xataa wuu ilbaxay tir hadda asaa isdabarayo aniga wadnaha ego naxdin hadda ma arkino marka xoogaa gaariga gooni wada hadleynay marka hore inaan isfahana ka bacdan kora waa kana intineer ku qabowsada awal laakiin waxay siidaadana la qaatay oo fadhigaaga ay wixii kuugu imaanayaan mobilkaaga shalaq ugu soo dhahayaan tartiibtaada iska dabaraysid taasaa la qaatay qof walbaan gaariga gooni afka jug ugu siinayna haddii la dhaho gabalkaa dhacaya sidii lay sugay diidiin dab loo dirayaa noqonaa marka anyway warninaa la socdo fadlan haddaa xataa akhrisaan waxyaabaha uu ka kooban yahay kulli waa high glass ila garayaa marka xaaji maco uu kula joogo yaa ku nafaqayso waxay ku dhaanta male xaaji maco markuu xoogaa dareemo boodboodka inuu badan yahayna caafimaadka ku jiro awalba waa laga rabay inuu nin xayo libaaxa noqdo hawsha kala tuuranayo ila garo inaan taraaraxana ma rabi lagjarka markaa ku nasatid nafaqadii waa taasaa la deg aan waa ka xumahay ama soonada aan labadan beri adeegooda sida tooska idinkugu soo gelinay in aan ka waayay kow adeegan wuxuu anfacayaa reeraha u socda IVF-ta way fiicantaa markii taas laga qaaday xaajigaaga cararayaashiisa inay noqdaan ciidan wax ka badan oo weliba caafimaad leh waa garateen u malaynaa intiina marka isdiyaarinayso si guud iyo si gaarba si guud waxaan ka wadaa caadi adoo gurigaaga iska jooga iska try garaysanaysid allah idii sahlo markay noqoto inaa IVF socotiin ku guuleysta waana ka xumahay qofkii si kasta u dadaalka uu muuqan waayo xaq rabbiye ka ahaatay wad aragteen meesha waa dhaqan tahay maasha allah
saaxiibayaal haya niyadu ha samaato wax khayr leh la niyeysto ilaahay ha loo xamdiyo ilaahay ha loo shukriyo waxaan already haysano waxa inaga maqan ilaahay baa garanaya wixii la maqan yihiin oo wax khayr leh Allah idin sahlo awlaaday lama dhahay awlaad khayr leh awlaad baariina saalixiina barakaysan ayagana wax istaro adinkana wax idin taro islaamkana wax taro okay cadowgana Allah idinka qabto aamiin ya rabbi naftu waa caajistaa way isciil bidaa way degdegtaa way carootaa way neerfisowdaa ilaahay hanala heshiisiya naftana insha Allah arrinkaanaan ku raad joogno isla tacaalka caafimaadka iyo uwadoonka iyo caafimaaddoonka waxuu isku jirjira ahne guushiisa Allah soo hooyo aamiin anigana ma dhihin Soomaaliya dhahday qof walba wuxuu cuno ciidamiya caafimaad Allah keeno dhiigii dhimirka nabad ku raaco yaa la walwalin aamiin ya rabbi qaasaan gabdhaha dhaay xaajigayga cararayaal male ha ka quusanin marka wixii u fiicanba u bilowdo oo kuu cuno ama hadday damage yihiin ama hadday naba jirin iyo hadday ciyow dhimanayaan iyo hadday hurdaan ay active ahayn iyo hadday abnormal yihiinba adigu ha baqanin just ilaahay u bari ducada sawjada ilaahay waa aqbalaa niyeysa wax khayr leh daryeel kasta xaaji muxuu u fiicanne durbadiba xaajigaaga u doon sidaad adiga naftaada dabiibka dad badanaa meeshii laga rabay imaaday sanadkan maasha Allah caado sanadaad maqneedoo soo noqotay alxamdulilah dareen suulayo hadda maasha Allah hasha hormoon qalqalsanaayo isi saxay khayrku waa iska badan yahay maasha Allah oo guuriya idin leh marka waa timekii xaaji muxuu lala shaqeynayay caafimaad Allah ugu daro insha Allah wuxuu cunay wuxuu cababa micnahoo la fahansiyaa xaaji muxuu aad ay muhiim ugu tahay laakiin warninka aan raacina nafaqadan waxay tahay in uu isjiro haddii xataa uu meel kala joogo dad waxaa jira laba meel ku kala nool IVF isku soo diyaarinayo xaaji waxaa tira xaaji ha igu keenkeenin yaa aniga ha igu keenkeenin waa ogahay waxaan ku siiyey yaa wax shaxshax kaa dhigayaan ku siiyey xaaji iska sabar min qofkii islaam oo iimaankiisa qaba dee darbiyada kama boodayo laakiin qofkii xoogaa ayaa dhaqaalanaya ista awoodna sheeganaya adoo soo taagan oo kaas indhaha caddeynaa soma dumar wax la kala qarinaa male waa iska xaal adduunyo marka wax kaasaa dhexdiina nabad allaha dhigo laba qof oo arrimaha isku meel ku wadana Allah idinka dhigo guushana Allah idiinsoo hooyo aamiin ya rabbi waa inoo dhiirigelinta kale haddii ilaahay ka raali noqdo waxaan ka jawaabaa insha Allah su'aalaha inoo qaaska ah su'aasha koobaad maamwaanoy salaanka bacdi waaye habar yar qof haddii uu wax cararayaala dhan lahayn maxay rajadiisu tahay ilaahay baa naga og waa sida gabdhaha lagu dhaho ugxaan dhan ma lihid haddana markay isla taaleen ugxaanta ee u kortay weliga allaha ha aaminin hadalka noocaasa waayo qofka waxa markay ka nuxusaan de waa la waayaa hadda webiga ama meelaha roobab markay dhacaan biyaha ku hakadaan hadday abaaro dhacdo biyuhu guraan sideed u fikiree waxaad ku xiran tahay soomaha inuu roob dhacoon sida webiga u buuxsamo ama warihii biyaha fariisan jireen inay soo buuxsamaan laakiin roobkee loo xaniban yahay soma dabiibkana nafaqadaa loo xaniban yahay waaye fadlan intaas la u faham ilaahay hadduu ka raali noqdo oy nafaqadu jirka gaarto sidii shalay la ahaa iyo ka fiicanaad noqon kartaa intaas la adi aamin waa hadday da'da kuu shaqaynayso ood qof dumara tahay ninka raggaa laakiin asiga ma xanibto da nafaqada lee xanibto iyo ilaahu caafimaad siiyo bliis intaas lee fahan aniguna intaasaan kugu caawi karaa wixii kaloo ka badan waa qof degdegaayo waa qof iimaankiisa itixaaman yahay waa qof neerfisa waa qof sugi waayey wuxuu alla qadaray waa qof oon degdegaayo daaseed wax kaloo meesha yaalla male raggu kama tagto taranka wuu ka xanuunsadaa laakiin kama tagto xanuunku wuxuu noqon karaa cararayaal la-aan minada xaggeedoon jirin hamadoo ka tagtay waxyaabo badan waxaasna cilaajaa loo baahan yahay cilaaj quraan iyo cilaaj nafaqo cilaaj jimicsi daaseed annagaa daran because annaga waa dhalma dhignaa
laakiin raggu ma dhalma dhigaan. marka insha allahu kheyr hala dadaalo. haye good luck maama, dadaal le waaye iyo dabiib duca dabadeed. haye su-aashan waxay qusaysaa dumarka. okay, qof labada ugxaansidaba ka jiran oo wax ugxaana oo la arki karaba ayna jirin, da-duna 40 sano dhaafe, rajadu maxay tahay? waa cuslaate, waa adkaate. ya tiktokan ka maqli jira adkaata iyadoo lale soomaalida kalintaas waa ku cusubtaa oo maleyna adkaatay. anyway, qof kaste oo 30 sano dhaafay, haddaana waa nagii soo qoray kilibyadii ahaa bilaa codka, waxaan dhihi lahaa oo dumara waliba 30 sanoba haddaa soo dhaafto fertilitigaaga la soco oo baar. midda xigto ilaahay bari, midda kaloo sii xigto isbaani. baanis means qof xanuunsan sida loo xaraariya camal fariiso. okay, u fariiso danahaaga, da-da ku xisaabtan, cayilka ku xisaabtan, caatada ku xisaabtan, nafaqada ku xisaabtan, distrasska ku xisaabtan, raaxadaada xisaabi, and then jirka chemicalka ilaali. chemicalka dumarka iyow ayuu ka dhalma dhigaa, sida daawooyinka qaldan oo bacrimiska, cunooyinka qaldan iyo wixii distressa. isla tacaal wanaagsan. markaan dhiirigelinteedii soo geliyay qaasaan programka nafaqada la dega. marka maama waxaan ku dhihi lahaa 40 haddaa tahay ama 40 plus aa tahay, xisaabi 55 sano iyo wixii ka dambeeya lagu dhalma dhigaabay adduunka isku afgarteen xilliga hadda taagan. laakiin waagi hore 60 iyo hodhodho ay ahayd. dadkuna waad aragteen gabowga soo u galaaya, hadda uu soo horumaraa. nolosha dhan sidii loo fikiri jiray ma loo fikiro. dadkii baariga ahay baariga maaha hadda. dadkii daacadda ahay daacad maaha. dadkii xasilka ahay xasil maaha. dadkii fiidka seexan jiray ma seexdaan. biyihii xareedda ahay ma aha. wax walba chemical laga daba wadaa, wax walba degdeg ay noqotay. cimriga dhan baaba hadda iska arrin kala noqday. haddii uuna dhaqaalahana ku dhibaynin, iskuna soo jeesatay daacadkaa taa isku soo jeesigaaga, qofba kuu boqol kuu taladii tira Soomaali. tala kasta kuu fiican qaado, daryeel badan raadso, isbedel badan samee insha allah. hadda xag rabbi lagama quusahe waayo wax la dhalaayo ilaahay baa naga og. qofkay wax u qoran yihiin ilaahay baa naga og. marka insha allah khayr hala dadaalo. dadaalkan ama nafaqadan waxaa iskala xaaji macow. lagjarkana waa xaajigaaga iyo adiga wada hadla, isku duceeya, yaan la quusanin. haye saboodka xaaji macow xataa wuu fiican yahay haddii loogu sabraayo xaaladiisa. nafaqada uu ku noqonayo meeshii laga rabay iyo kasii fiican anigu si gooni kuma sheegi kara. anigu listi dheer oo wixii fiican waa ku sii karaa, laakiin ilaahay idinkiisa koow ku sii helaya caafimaad ama qaybtu caafimaad ku sii helaya ilaahay baa naga og. marka daryeelka waa ku bari karaa, kana fiican waa ku dhihi karaa, laakiin adiga caafimaad ku heligaysid kuma dhihi kara. taas ma fiicno in saas loo fikiro ama loo hadlo. waa ilaahay baa naga og lagu hagaagayo. marka waa kaasaa tana listiga ku darsada. caafimaadku cuna, ku caba, ku cesha. waa inoo lagjarka kale adeega xaaji macow baa si fiican noogu bilaabana insha allah. wixii u fiican bu odaga la deg, caafimaadku sii, allaha kuugu daro. hayahe awlaad kheyr qabto oo saalixiin oo baariinana allah idinka soo sarifa, aamiin. inta aniga ii duceynaysa mar walba jazaakallah. wada shaqeyn wanaagsan inta aan la shaqeeyo. team blue diamond farxad iyo caafimaad iyo reenreena ilaahay noo wada weydiiye dhammaan. dacda kaloo ka dambeyso programka memberka tihiin sii aqliyeysta, gaanjibooyin sii noqda. wixii idin fiicanna durbadiiba horaa waxaa loo yiri shilinkaaga iyo gooskaaga waa leesbaraaye. daf dhaha ama haf iyo balow la dhaha doonta, kadibna isku dabiiba insha allah. aan fadlan xaajigiina u sheega haddii xagga hamadiisa badato daryeelba daryeelka kale oo ka fiican ee weliba waxtar u leh caawinaada fertility-ga. hamada inuu badiyo waa lagu ogyahay. marka xaajiga duu boodboodka badiyo waxaa tiri xaaji waa ogahay, anigana ma dhihini. Soomaaliya waxay tiri qoraygaa tuurtid qajaftiisa lagama naxo. marka xaajiga oo inta kaamara haddaad aragtid de wuxuu cunay humdoo ciidadiye saaxiibtini wanaagsan. intaas haddaan dhaafo waa taraaraxayaaye
I love you so much. Lecture-keedin qaaska ama faahfaahinteedii qaaskana dhageysta dhagtuna ha idin taagnaato baabkii xaaji maco baa inoo furmay caafimaad allah ugu daro hayahe waxa ay nafaqadan ku sii amaanan tahayna si qaasa afka jug iskugu siinayna dhiirigelinta idin qaaska dhageysta haye cuno fiican xaajiga hala sii insha Allah kana fiirsada for example waxa idin soo gelinaya fiidiyoyada yar ka furo nafaqadaas doonta xaajiga hala baaniyo mid kale waxa idin qaaska adinka cunaysiin oo xantiin oo fiican dhagta soo laalaabiyo insha Allah haye waa id salaamaya waa inoo yita kale insha Allah intiina youtube-ka joogta programka like noo saara haddii awoodaan intiina programka joogtana insha Allah waxa laala wixii idin qaasa oo xaajigeena u qaasa fadlan qaata qolkiina idin qaaska geesta waa inoo yita kale insha Allah mar koobaad mar labaad waa id salaama waxaan idinkaga mahadcelinayaa intiina ii soo duceyso programkana uu hagaaga ee farxad ma sha Allah meel isgeeyaan ma sha Allah idin le oo guuriyo mabruuk salaamu calaykum